ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa dhex socda dhulka Basra aag halis ah oo muddooyinkii u dambeeyay ay isku gacan saarayeen shabaab iyo dowladda. Waa muuqaal ka imaanaya deegaanka oo muujinaya ciidanka oo eryaday shabaab, inkasta oo halkan maanta uu ka dhacay dagaal aad u qaran oo ururkaas shabaab iyo dowladda ciidankeeda dhex maray. Muuqaal lagu baahiyey mareeg u adeegta shabaab waxa uu muujinayaa in dhulka ay dhigeen 5 nin, kuwaas oo iyagu ay ku sheegayaan inay yihiin dhalinyaro ka tirsan kooxda Haramcad. Dhalinyaradan la dilay ayaa arrintooda ay dood badan abuurtay, sida baraha bulshada aadka loogu hadalhayo marka laga tusaale qaato. Dad badan ayaa u nisbeynaya dilkooda shirqool qorshaysan, maadaama Basra oo ciidanka dowladda ay weerarkan ku qabsadeen lagu dilay 5 dhalinyaro oo kaliya ka tirsan hal urur oo ah Haramcad. Markii horena horay loogu dilay deegaankan taliyahoodii. Dhalinyaradan ayaa la sheegay inay ka mid ahaayeen koox saraakiila oo diiday in deegaanka ay ka howlgalaan. Markii Farxaan Qaroole lagu dilay, codsadayna in baaritaan dheer la marsiiyo kiiskiisa, inkasta oo markii dambe lagu qanciyey inay dagaalka ka qayb galaan. Xaaladda deegaanka Basra ee hadda wararkii u dambeeyay waxay sheegayaan inay degan tahay oo gacanta ay ku hayaan ciidanka dowladda. Sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha goobta ku sugan, dagaalkan waxa uu ahaa kii ugu qaraaraa ee deegaanka Basra ku dhex mara ciidanka dowladda Soomaaliya iyo ururkan. Jabkii ugu weynaa ayaana la soo warinayaa in la gaarsiiyey kooxda weerarka soo qaaday ee shabaabka, iyada oo jiidda hore ay hadda ka dagaalamayaan ciidanka geesiyaasha ee Soomaaliyeed. Walow ciidanka laga dilay 5 ka mid ah kuwa Haramcad. Kooxda shabaab waxa ay iyagu muuqaalkii ay soo bandhigeen ee bartooda gaarka ku jira ay ku sheegeen inay guul weyn ka gaareen oo ay dileen dhalinyaro firfircoonaa oo saraakiil u badnaa. Halka dowladda Soomaaliyana ay sheegtay in ay ururka ka dileen maanta oo kaliya 19 ciidankii weerarka soo qaaday ah. Basro oo dhulkan aad u jeedaan ah waxa hadda maamulaya dowladda Soomaaliya. Walow uu dhulkan dhiig badan qabo oo tii ugu dambeysay ay maanta tahay, waxaa toddobaad ka hor sidoo kale lagu dilay taliyihii dadka ay wada jeclaayeen General Farxaan Qaroole, kaasi oo geeridiisa lagu sheegay inay ka dhalatay miino uu ku istaagay. odayaal erga ah oo shabaab ka socda ayaa laga diiday codsi ay soo bandhigeen oo la xiriira kacdoonka ka curtay gobolada dalkan Soomaaliya. sida ay ila wareedyo xog ogaal ah u xaqiijiyeen dhanka wararka, saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ee hogaaminaya gulufka dagaal ee ku wajahan deegaanada ay al-shabaab ka joogaan gobolada shabeellada dhexe ayaa diiday inay aqbalaan waan ay odayaal deegaanka ka soo wadeen dhanka kooxda al-shabaab. 3 oday oo sheegay inay erga ka yihiin kooxda ayaa la soo xiriiray mas-uuliyiinta, waxayna caddeeyeen in qorshaha al-shabaab uu yahay inay isaga baxaan dhulka ay deegaan beelaha Hawiye, islamarkaana ay beesha ka codsanayaan in gobolada kale ee koonfurta dalka aysan uga daba imaanin. xogtan helnay ayaa waxay caddeynaysaa in saraakiisha ciidamada iyo mas-uuliyiinta dowladda ay ku sugan degmada Cadale oo codsigan uu ku socday ay ku gacan seereen dalabka odayaasha, waxaana Cadale la isku keenay ugu yaraan 200 oo gaadiid dagaal ah iyo ciidan aad u tiro badan. sida qorshuhu yahay, waxaa maalmaha soo aadan gobolka shabeellada dhexe ka bilaaban doona guluf dagaal oo saf ballaaran ah, kaasoo cagta lagu marinayo deegaanada ay al-shabaab joogaan. saraakiishu waxay noo sheegeen in la dejiyey qorshe la doonayo in lagu soo afjaro dagaalyahanada kooxdaasi ka joogta gobolka shabeellada dhexe. wararku waxay intaasi ku darayaan in markii al-shabaab laga sifeeyo gobolka shabeellada dhexe in ciidanka loo jihayn doono dhanka degmada Ceeldheer ee gobolkaasi Galguduud, halkaas oo ka mid ah goobaha ay al-shabaab ku xooggan yihiin. kooxda shabaab oo cabsi iyo culays badan kala kulmaysa duulaanka uga soo wajahan shabeellada dhexe ayaa soo dirtay odayaashan codsigooda la diiday, kuwaas oo sheegay in ay ku sugan yihiin deegaano u dhow degmada uu abaabul ka socdo ee Cadale. waxaan nahay 3 nin oo lasoo wakiishay in wadahadal furano ayaan rabnaa. waxaan helnay magacyada iyo taleefanada ragga hogaaminaya ciidanka xamar ka soo duulay, marka fariin ayaan idinkaga wadnaa al-shabaab uu yidhi odaygan oo al-shabaab ay soo wakiisheen. waxa uu sheegay inay al-shabaab ka soo ballameen ama ay kasoo ballan qaadeen in dhulka Hawiye isaga baxayaan, balse beesha ay ka rabaan in koonfurta Soomaaliya aysan uga daba tegin oo ammaan ay ka helaan. yaana isku baabi'in, waxaan nahay rag ahludiina, waxaan nahay rag tol ah, ee yaana isku baabi'in nimankaasi. saas ayayna soo dhaheen, waxaad tihiin walaalaheen, waxaa rabtiin wata dowladda, rabtiin wata dhulka, haddaan dhibsateen waan idinkaga tegaynaa
koonfur ayaan aadaynaa ee hanogada imaanina iyo odaygan hadalkiisa kusii daray xilli uu ka mid ahaa ergo kooxda shabaab ee u dirtay saraakiisha iyo mas-uuliyiin dowladda ee ku sugan gobolka shabeellada dhexe waxaana gebi ahaan codsigaasoo noqday mid fashilma oo waa ay diideen inay aqbalaan saraakiisha gulufkaasi dagaal hogaaminaysa oo mas-uuliyiin dowladeed xildhibaano iyo saraakiil ciidanba isugu jira waxayna hadda shabaab u muuqdaan in haddii shabeellada dhexe dagaal looga qaado hiiraanna mid kalu ka socdo dhexda ay gelayaan oo ay gebi ahaanba isaga baxayaan deegaanada hirshabeelle iyo galmudug sida hadda ay ku socoto howlgalkuna wuxuu u muuqdaa inuu yahay mid saf ballaaran ah oo shabaab marka hore laga soo ciribtirayo deegaanada hawye ay degaan gaar ahaan shabeellada dhexe iyo sidoo kale gobolka hiiraan dhinaca kale haddii aan eegno marka horey loo socdo amarka kasoo baxay shabaabka sokow haddana waxaa jira in caqabad kale muqdisho weli ay ka taagan tahay kadib markii kooxda shabaab ay joojisay dhismo ka socday gudaha magaalada muqdisho taasoo si caro leh uga hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya kooxda hubeysan ee shabaab ee joojisay dhismayaal ka socday qeybo ka mid ah magaalada muqdisho iyadoo milkiilayaasha iskale dhismayaashaasi ku amartay inay hakiyaan shaqada sida xogaha la helayo ay muujinayaan wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta axmed macalin fiqihi oo shir jaraa'id qabtay dadka dhismayaasha ka socda muqdisho u istaajiyey amaro ay ka mid yihiin al-shabaab ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay farayso milkiilayaasha guryahaasi in la qaato amarka shabaab uu ka turjumayo inay tahay arrin dembi ah cunug xun ama kooxda argixisada qof ka tirsan oo isagoo dhumalaysi ku jooga duurarka in amarkiisa la qaato loona ciqaabo dadkii xogta xoogsatada ahaa runtii arrintaasi waxa ay muujinaysaa ayuu yidhi arrin aysan dowladda u dulqaadanaynin inay tahay ayuu yidhi wasiir axmed macalin fiqi waxa uu milkiilayaasha goobahaasi ganacsi faray inay si deg deg ah u shaqo bilaabaan isagoo sheegay in dowladda tallaabo adag ay ka qaadi doonto ciddii aan u hoggaansamin awaamirteeda ee midda shabaab qaadata waxaan falaynaa in la fasaxo dhammaan dhismayaasha oo ay bartoodii ka wataan ciidamadu ammaanka ay tallaabo ku habboon ka qaadi doonaan kooxda argixisada ah cid kasta oo amarka dowladda fulin weydana waxaa laga qaadayaa tallaabo sharci ayuu yidhi wasiir axmed macalin fiqi oo arrintan si kooban uga hadlay si kastaba dowladda soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay bilowday inay kooxda shabaab kala dagaalanto dhanka maaliyadda waxayna ganacsatada ku amartay inay iska diidaan lacagaha baadda ah oo ay kooxdaas ka qaataan sida uu sheegay wasiir fiqi waxaana dhowaan dib amarka dowladda loogu furay goobo ganacsi oo ay horey shabaab u xireen taasoo ku muujinaysa in dowladdu ay waddo dhaqdhaqaaq xoogan oo kooxdana looga ciribtirayo guud ahaan dalkan soomaaliya al-shabaab ayaa dowlad aan muuqan oo dhinac socota dowladda federaalka ku leh magaalada muqdisho waxay canshuurtaa ganacsiyada waxay maxkamado uga yeertaa shacabka waxay soo saartaa amaro dhaqangala oo ay ku joojiso dhismayaasha kuna xirto goobaha ganacsiga ugu dambeyntiina haddii aan eegno ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa amar culus la duldhigay xilli khilaafka madaxda meeshii ugu xumeyd uu gaaray ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa markan wajahaya culays weyn oo dhanka madaxtooyada uga imaanaya xilli lagu amrayo in uu magacaabo xil shaqsi aada ugu dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud xogtu waxay muujinaysaa in xamse arrintaas uu si weyn u diiday balse markii uu cadaadiska ka batay islamarkaana ay damul jadiid saareen culays weyn oo siyaasadeed uu aqbalay inuu magacaabo shaqsi uu doonayo xasan sheekh maxamuud in xil gaar ah loo dhiibo haddaba waa kuma shaqsiga xamse la amray inuu magacaabo xilli xasan sheekh uu amarkan ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda xasan maxamuud ayaa wargeliyey ra-iisul wasaare xamse inuu xil u magacaabo sarkaal uu dhowaan xilka xayuubiyey xasan sheekh maxamuud ayaa amray in ciidruus macalin xasan loo magacaabo si kumeel gaar ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha ciidruus ayaa dhowaan laga qaaday xil gudoomiye ku-xigeenkii hay-adda taya dhowrka soomaaliyeed iyadoo xilkaasi laga xayuubiyey uu abuuray buuq siyaasadeed balse xamse ayaa arrintan si weyn uga dhiga adeegay ciidruus ayaa booska laga qaaday waxaa loo magacaabay xaawo axmed xasan oo ka mid ah qoyska madaxweynaha soomaaliya wiilkiisa u dhexda tallaabadii 16 bishii hore ee sebtembar uu ku dhaqaaqay xamse ayaa hadda xal degdeg ah lagu qalbanaaday in la sameeyo waxaa jirtay in xubno oo si hoose loo magacaabay jiraan oo iyaguna buuq abuuray balse xilka la rumaysan yahay inay jiraan dadka boosas kale loo tuurayo halka kuwo kalena shaqada laga eriyo
guud ahaan saaxiibayaal waa naga intaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee Soomaaliya tan iyo kulan dambe nabadgelyo.